gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhagax la sheegay in uu ku fadhiyo qiimo gaaraya ama lagu kala iibsadayba qiimo gaaraya 250 kun oo doolarka Mareykanka lacag ku dhow. dhagaxan ayaa laga soo qaaday ceel cali sida la sheegay ganacsato Soomaaliyeed ayaana ka bayac mushtaraysa. haddaba dowladda Soomaaliya ayuu uga mahad celiyay ciidamada Hirshabelle waxa uu amray inay kheyraadka ilaaliyaan. warkan aadan macallin aadaamo ayaa soo koobaya. gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ka hadlay dhagax la sheegay inuu qaali yahay kaasi oo laga soo qaaday deegaanka ceel cali ee gobolka Hiiraan isla markaasina ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska Soomaaliyeed. gudoomiye Cismaan Barre ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ciidanka booliiska uga mahad celiyay qabashada dhagaxaasi waxaana ciidamada Hirshabelle uu faray inay ilaaliyaan kheyraadka Hirshabelle يعني dhagax ama dhagxaan muxuu ahay maalmahan macnaha laga soo guray meeshaasi ama laga bilqaysanayay waxaad ogtihiin nabadiidka Soomaaliya ama caalamka inay hadba heer soo mareen yani dadka ay heer ku dhibaateynayeen sida in dadka xoolahoodii yani noolay muxuu ahay la booba in muxuu ahay dad la afduubta dhibaato badan inay u geysanayeen tii markay soo yaraatay hadda waxay bilaabeen inay iib geeyaan resource ama kheyraadkii dalka Soomaaliya inay dibadaha u iib geeyaan ayagoo kaashanaya ajnabi ayagu la yimideen ee yaqaan muxuu ahay macaadinta iyo qalabkaas qaabka yani loo baaray yaqaan ay adeegsanaya marka ay hadda maalmahan soo korortay runtii dadkii shacabka ahayn dhibaato ayaa ka soo gaartay deegaankaasi dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay meeshii waxaa ka taagan buuq fara badan anaga Hirshabelle ahaan runtii dadaal fara badan ayaan sameynay wadooyinka waa la xiray ciidamada howlgal fara badan ay muxuu ahay qaadeen resource-kii marka waa runtii waa soo baxsaday waxaan u mahad celinayaa oo gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya runtii oo aad iyo aad muxuu arrintaasi aan la socodsiinay ayagana macnaha si wanaagsan yani uu howlgalay ayaan runtii u mahad celinayaa oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha wasiirada cid kastoo arrintaasi gacan ka geysatay ee dowladda federaalka Soomaaliya marka waxaan rabaa inaan dhowr qodob ku soo koobo marka koobaad waxaan u baaqayaa shacabka reer Hirshabelle degan muxuu ahay deegaankaasi laga soo qaaday muxuu ahay dhagxaantaasi inay isdifaacaan inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan inay argagixisada caalamiga ka difaacaan dadkaas way tagayaan dalka adinka iskale waxaan leeyahay dalkeena difaacda isteedka iyo dowladda Hirshabelle waa garab taagan tahay iyo dowladda Soomaaliya waxaan kaloo rabaa in halkaan muxuu ahaa idan baaq ugu dira dadka maxay ahayd ku howlan caawinta argagixisada caalamiga ah ee resource ama kheyraadkii dalka yani ku caawinaya ayagana inay ka waantoobaan haddii kale waxaa la horkeeni doonaa cadaaladda la horkeeni doonaa ama sharciga shabaab qabanaya ayaa qaban doona ayagana taasaan u dirayaa shabaab waa urur argagixiso ah dalka ku jooga sharci darra dhiigga ummadda Soomaaliyeed daadinaya marka in lala mucaamilo runtii waa wax dambi ah sidoo kale marka waxaan rabnaa dadka waxay maqleen dhagax ma aha dhagax iska caadi ah in dadka inay u qaataan ayaa laga yaabaa waa dhagax ku fadhiya qiimo badan waa dhagxaan fara badan iyo kheyraad fara badan ayaa dalka yeela gaar ahaan muxuu ahay gobolka Hiiraan ee degmada maxay ahayd ceel cali marka dhagaxaas dhagax caadi ma aha waa wax fara badan ayuu ka kooban yahay ama yani macaadintaasi ama kheyraad kale ayuu muxuu ahay dalka yeelo lamid yahay marka dowladda Soomaaliya waa u mahad celinaynaa mar labaad mar saddexaad qabashada ay qabteen waxaan doonaynaa marka dhagaxaasi inaan muxuu ahay dowladda Soomaaliya kala xaajoono resource-kaasi state-kaas iska leeyahay iyo deegaankaasi in la mariyo sharciga kheyraadka dalka u yaal in la mariyo muxuu ahay hore loogu heshiiyey annagana marka waxaan diyaar u nahay annagoo ka hadlayna magaca muxuu ahay dowladda federaalka iyo maxay ahayd iyo kan Hirshabelle inaan kala mucaamilno sidii wax kale aan halkan loo keeni lahayn iyo kan sidii loo maareyn lahay inaan ka wada xaajoono runtii waxaa kaloo dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa inay yani naga gacan siiyaan xoreynta degmooyinkaasi shabaabka ay hadda yani soo muxuu ahay diyaar garoobeen inay kheyraadkiisa qaataan labadan maalmood waxaa aad loo hadal hayay
dhagax weyn oo laga soo qaaday deegaanka Ceel Cali laguna sheegay in lagu kala iibsaday lacag ku dhow $250,000 inkastoo aan weli la cadeyn nooca dhagaxa uu yahay. Aadan Macalin Aadaamo, TV-ga SBS, Muqdisho.